ganacsi oo xura dalalka qaaradda ayuu dhex maraya waxaana uu abuuri doonaa kooxda ganacsi ee dunida ugu weyn oo haysata macaamiil ka badan 1 milyan oo qof. heshiiskani waxa uu meesha ka saaraya caqabadaha bayac mushtariga ay kala kulmaan ganacsiga waxaana uu xoojinayaa wax isdhaafsiga ganacsiga ee qaaradda Afrika oo aad u hooseeya. wariyaha BBC-da Matthew Davis ayaa ka warramaya waxaana soo jeedinaya Cabdirasaaq Xaaji Maxamed Salaad. deegaanka ganacsiga xorta ee qaaradda Afrika heshiiska la gaadhay waxa uu ahaa mid aad loogu rixiyey magaalada Kigali. waxaa la sheegay in la abuurayo deegaan ka caagan cashuuraha oo ka bilaabmaya Cape Town ilaa Qaahira, Mombasa ilaa Dakar. ballamo ayaa jira in la kordhin doono ganacsiga qaaradda Afrika, taasuna ay keeni doonto kumanaan shaqo ah in la abuuro oo xataa maalin lacag isku mid ah Afrika ay yeelato. laakiin khadkii qalinka lagu qoray intaanu qalalinba dhibaata ayaa ka soo baxday. madaxweynaha waddanka Nigeria Buhari kama soo qayb galin shirka Kigali. ururada shaqaalaha ee dalkiisa ayaa waxa ay sheegeen inaan la siin waqti ku filan oo ay ka xaajoodaan arrinta. dadka arrinta indheeya ayaa waxa ay ka shakisan yihiin in gidaarada ganacsigu ay burburi doonaan 50 dal oo Afrikaan ah oo waqti dhow hoos loo dhigi doono ganacsiga, iyaga oo sheegay marka horeba inaanay jirin ganacsi weyn oo dalalka Afrika dhex yaala, taasuna ay noqon doonto caqabad. laakiin haddii la gaadho waxyaabaha la doonayo ee adeegaan xora dhinaca ganacsiga oo uu noqdo meel mar, waxay noqonaysaa tallaabadii ugu horreysay ee dhaqaalaha Afrika la isku soo dhoweeyo, taasoo hagaajin doonta nolosha malaayiin qof. Cabdirasaaq aad buu mahadsan yahay. haddaba wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo BBC-da u warramay ayaa sheegay heshiiskan Soomaaliya faa'iido weyn inay ugu jirto. khadka telefoonka ee magaalada Kigali ayaa wasiir Axmed wuxuu u warramay wariyaha BBC-da Farxaan Maxamed Jimcaale. Soomaaliya hadda horta Afrikay ka tirsan tahay, qaaraday ku taala, Afrikay la dan tahay. aniga say ila tahayna suuq Afrika oo furan oo xor ah, waxa dadka ugu badan oo ka faa'iideysanaya waa dadka Soomaalida ah oo baac mushtarka ah. waxaa yeelay waa dadka ugu dhaqdhaqaaqa badan oo ugu baac mushtarka fiican adduunka. madaxweyneyaal badan baan hadda arkayay. madaxweynaha for example South Africa oo cusub oo isdhinac fadhino ku kursi xigno, madaxweynaha Gabon, madaxweynahan arkaba wuxuu leeyahay Soomaalidu waa dad cajiiba oo meeshay tagaaniid qabsanaya. taas waa dadka waa baac mushtarka Soomaalida ah. dhanka dawladaha iyo dalalka Soomaaliya iyadu siday uga faa'iideysan karto arrintaas hadda si degdeg dhaqsaa uga faa'iideysan karaan iyo muuqato. maxaa yeelay waddankeena hadda weli infrastructure-kii ama kaabiyaashii dhaqaalaha, sharikaadkii waaweynaa, joogitaankiisa, warshadihii wixii weli waa ku yar yihiin. wasiir waxaad tiri dadka Soomaalida waa dadka ugu badan ee ka faa'iideysanaya. waxaan ognahay in ganacsigu uu yahay isdhaafsi, inaad adiguna aad wax beec geyso, adiguna aad wax soo gadato. Soomaaliyana xaaladeeda waan ognahay oo sida aad sheegtay hadda kaabayaashii ma jiraan oo xuduudihii waddankiina iyo nidaamkiina canshuuraha ma dhisna. marka ganacsigaasi xorta ah waxbuu idinku soo kordhinaya maad isleedahay? dadka Soomaalida baac mushtarka qof baac mushtarka Soomaalida kambariyada oo Kenya joogo, Zambia joogo, Tanzania joogo, South Africa joogo, adduunkaas joogo, oo South Sudan joogo, oo mararka qaarkood xiriiri uu ka haysto dalalkaas xagga sharciga iyo xagga maaragtay maxaa la yiraahdaa furaanshaha suuqa, dee aad uga faa'iideysanayaan heshiiskan cusub. waan kuu sheegay xagga dal ahaan dalka Soomaalidu maadaama uusan saad sheegtay lahayn awood uu isagu dhaqaalihiisa waxa ka soo baxa warshadihiisa ama beerihiisa uu ku gaarsiiyo, uusan lahayn dhaqso hadda mustaqbalka dhow, inkastoo tan nafteedu waqti qaadanaysa, heshiisku hirgala waqti qaadanayo. ganacsatadaas aad sheegtay Soomaalida dibadda joogta marka laga soo tago, tan gudaha waddanka gudihiisa joogta oo adinkana dawladdiina gudaha ay ka howlgalayso, sideed u daryeeli kartaan in aan lagu samaynin xadgudub amaba aan looga faa'iideysan nidaamkan iyo sharcigan cusub iyo heshiiskan cusub uusan u saamaynin si qalad uusan u saamayn? Farxaan, adigu hadda khaladka aragtid aniga inuu noqdaan waxaan kuu sheegayay. horta baac mushtarkan ka hadlayaa gudaha iyo dibadba waa isugu jira. qofkii Soomaaliya oo raba inuu adduunka ama wuxuu soo saaro ama services uu sameeyo, adeegyo uu sameeyo, ama maalgashi uu rabo, qofkii raba inuu adduunka gashado oo suuqa Soomaaliya suuq ka ballaaran uu gashado, Afrika inay u furan tahay oo suuq xor uu leeyahay, Soomaalida qofna ugama dheeranayo arrintaas. marka baac mushtarka markaan ka hadlayay kuwa dibadda iyo kuwa gudaha waa ka hadlayay. laakiinse wixii hadda markii la ogaado haddii dhibi soo baxdo dhibtaas dawlad baa jira. weli qarannimadii
dalalku lahaayeen waa jirtaa. يعني وزير waxaan ka wada xakameyn karaan wixii dadkooda iyo dalkooda xadgudub ku ah, laakiin suuqu inuu furan yahay waxaa dani ugu jirtaa dalalka. taariikhdu waxay muujinaysaa marka Soomaaliya suuqeeda keliya qofka bacda Soomaaliga haysto iyo markuu haysto suuqa